qoysaskan oo tiradoodu ay gaarayso 180 qoys oo ka soo barakacay deegaanada Al-Shabaab ay ka maamulaan gobolada Mudug iyo Galgaduud todobaadyadii ugu dambeeyana soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta la gaarsiiyay deeq raashin oo isugu jirta bariis, bur, sonkor iyo saliid waxaana goobjoog ahaa goobta deeqda lagu qaybinayay madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug Oba Xasan Ugaas Oba Xeegan oo wakiil ka ahayd dadka deeqdani soo dhiibay iyo gudoomiyaha degmada Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi Cabdulle ayaa ugu horeyntii warbaahinta u sharaxay deeqdani qaabka dadka loogu qaybiyay farxad weyn noo ah inaan meeshan u joogno inaan qaybino ama gacantooda aan ku wareejino dadkii nagula soo dhiibay ama u baahnaay sadaqadii aan noo soo idmateen gacanteennana ku soo wareejiseen in annagana maantay ku wareejinayno ayadoo madaxdeena iyo dhammaan dadkii mas'uuliyiintii dhan ay nala joogaan waa mahadsantii dhammaan intii soo dhiibtay intii xoogooda iyo aqligooda iyo qarashkooda iyo jeebkooda intaba soo gelisay aad iyo aad u mahadsantiin waan kaga mahad celinaynaa insha Allah annagana ilaahay ceebteena ha asturo sidii loogu talagalay inaan u dhiibno waa filaynaa inta maanta ay sadaqadan gacantooda gaartana ilaahay ha u barakeeyo ilaa 180 qoys oo qaar gadoon xilligan ku sugan yihiin in la gaarsiin doono xogaagan ayaa la ballan qaaday qoyskii waxa la siinayaa sida hortiina ka buuqata kiish bura haaf sonkora iyo haaf bariisa kartoon baasta iyo caag saliida waxaan leenahay cidii la siiyo Allah u barakeeyo cidii soo dhiibtana bedelyaal Allah ugu bedelan leenahay waa bilow fiican sida uu professorku u sheegay laakiin dadkii hooy ma lahan hantina ma lahan qaar ka mid ah dadka oo ku sugnaa goobta raashinka loo qaybinayay ayaa iyana warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in aad ugu baahi qabeen gacan noocaana waana u mahad celinaynaa dadka noo keenay iyo raggiina guddigaaba khayr badan Allah siiyo walaalaha iyo jiro waana la siiyay bariis bur sonkor baasto saliid madaxa xukuumadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa u mahad celiyay dhammaan cid kasta oo gacan ka geysatay soo gaarsiinta raashinkan dadkani maanta loogu deeqay ku dhibaataysnaa gudaha degmada Dhuusamareeb waxa weeye dadkan halkan jooga dadkii ay dhibaateeyeen nabadiidka ama shabaab ama khawaarijtu ay dhibaateeyeen ee soo barakacay ee ka soo barakacay dhibkoodii soona doota dhib la'aan waxaan rajaynaynaa biidnillaahi alkariim inay noqdaan kuwii ka gargaarsada dhibaatadii ay ka soo carareen dhibaatadii ay ku hayeen khawaarijtu inay ka gargaarsadaan oo ka dhimirsadaan ayaan ilaahay ka rajaynaynaa dadka wanaagsan ee muxsiniinta ama samafalayaalka ah ee dibadda jooga iyo kuwa gudaha joogaba waan uga mahad celinaynaa sida ay ugu soo gurmanahayaan markii ay maqleen dadka walaalahooda ee dhibaatadu haysato sidii ay uga bixi lahaayeen dhibkana ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaan u wada barino weeye dadkan deeqda la gaarsiiyay waa dad ka soo cararay deegaanada Al-Shabaabku ay ka arimiyaan sababtay uga soo tageenna waxay ku sheegeen Al-Shabaab ay caruurtooda ay kala soo maateen kadib markii shabaabku ay ku wargeliyeen in dhammaan caruurtooda la askareynayo cadaadiska Al-Shabaab ay ka wadaan deegaanada gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa muddooyinka ugu dambeeyay aad u soo tarayay Abdi Jamaal Macalin Axmed Kalsan TV Dhuusamareeb